magacayga waxaa la dhahaa Axmed Maxamed Ciise magacayga formalka naanaysta waxaa la dhahaa Barra Cadaan Ciise marka social media Barra la dhahaa Cadaanna waa aabe marka kulay waxaan kamid ahay dhalinyarada wuxuun oo ku biirisa wadankooda contribution xagga bilicda oo sawir qaadayaasha isma li horta sawir qaada weyn baa tahay laakiin waxaan leeyahay intikraamkaaga ahayd sawir fiican qaaday oo deegaanada Puntland kala duwana taasoo iga ahayd anigana waan jecelahay sawir qaadista oo passionate bay tahay tan labaadna waxaan isla haday wadankaaga ugu heeliyo maadaama wadanka Soomaaliya uu burbur ka soo kabtay in bal la helo sawir qurux badan oo deegaanadii ka turjumaya oo kuwa taariikh xambaarsan yihiin oo kuwa xog dheer iyo xambaarsan yihiin goobo qurux badan laga soo qaaday si loo arko deegaanada ku noolahay iyo meel Soomaaliya waxay tahay meel qurux badan oo cid kasta noloshooda ay ka soo gali karto taas baa igu dhalisay marka inaan noqdo sawir qaade marka su'aashadan ka jawaabo maleen wali indhahaagu ma qabteen intaad yarayd oo aadan sawir qaaday inaad saxafi noqoto soo gaarinin wali indhahaagu ma qabteen humaaga aad jeclaysanaysa marka inaad hesho waxaad ku sawirto aad sawirka qaato horta qofku marka uu hibada isku arko horta humaagiya u muuqda waxa laga yaabaa inaan kaamirooyin iskala soo degi jiraan oo kaamira awoodin inaan iibsado oo aan galeriga iskaga jirtay kaamirooyin kala duwan waxa laga yaabaa khibrad ahaan marka aad korto humaaga ku sawirnaa laftigooda dima sawirka saxda ah qaado oo deegaanada saxda inta tagto sawirro kala duwan ka qaado xaaladiisi experience oo khibrada aad u dhex gasho marka waxaan isleeyahay wax badan aan hirgalay waxyaalaha aan ku faraxsanaa kulli waagaas waxyaalaha kamidka ahaa aan isleeyahay awards waxa ku heshay waxa kamid ahaa sawir aan magaalo ka qaaday baa jiray oo sawir habeenba magaalo waxay la ekaatay Paris marka waxay xilli dambe ahayd adigu 9kii iyo barkii ahayd hotelkii marka uu socdaan dignaa magaalada Ceel Daahir gobolka Bari ka bacdi sawirka saasaan u fiiriyay bir dheer baa marka magaalada ka dhex taagneed marka calaamada Paris way la yaray ka tahay magaalada aad bay u iftiimaysay habeenkaas marka sawir baan qaaday sawir saddex habeen baan idadgareynay hadba dhinac ka fiirinay ma dhigtaa ma deysa marka dambe sawirka waa post gareeyay ka bacdina sawirka feral buu noqday sawirka feral baa habeenkii noqday wuu qabsaday wadanku qabsaday dabeetana gudoomiyaha degmada wuxuu dhahay ninka odayga subaxii waxaan rabaa inaan ku abaal mariyo dhul marka subaxii ay yimaado waa comment gareey waxaan ku yiri subaxii baan kala wareegi doonaa ka bacdina Axmed baa la dhahay ninkaasna oday weey marka dhulku subaxii ugu wareejiyay oo 20 magaalada Ceel Daahir hantiilaad ku noqotay marka sidoo kale iyana waxa dhacday mar aan halkaan joogay ina Garowe hotelka Martisoor ayaan sawir ka qaaday goor galabaan oo gaarigayga wata daaqadan waliba ka qaaday sawirkan soo post gareeyay nin shareska hotelka meela soo hadlayo warwaafigaaga isoo sheeg buu yiri ma garatay isagan lacag buu isoo diray ayaanta waxaan ku jiray ololaha Ceel Daahir Ceerigaabo oo wadada Ceel Daahir ah iyadana wuxuu ugu dhahay waxay igu dartaa lacag igu dar dhowr foosto lacag soo diray lacag buu isoo diray amalaysaneen oo sawirka aawadiisa wali wuxuu inuu hayga xishoon qalab iyo waxraa daba baahan tahay isoo wac marka bulshada waxa arkaysaa bulsho badan oo ka abaal marinaysa marka aad shaqo qabatid kuwa badan oo waxa arkaysaa hoos ku dhigaya kuwa badan oo canjarafeen kala kulmaysid kuwa sawirro fursad badan waxa arkaysaa isleedahay raadi oo kaalmaya mararka qaar kood caqabadaha jira awad marka sawirro kale aan lugeeyay waxaan xusuustaa ilaa 9 kilomitir meel kamid ah gobolka Sanaag sawirro doctor aan ka qaaday اسمه أركا أملينيا أركا صار كاس لوك بان قاضي ولو مول باوتي أكسس ولا حتى أنا كاميرون قلب كاوتي كل سوني قلفت قالوا حكي أنت قف وح أو دون نسوي قاعدين كرا مركا حرفة لا هذا هاي قونت لا هاي حرفة كل سوني ذا كمان صح حرفة كل سوني ذا كمان صح مركز تاعي كل حشرتي كاميرا دي قونتينا سكيل ديفلوبمنت أو كورديا كونتينيوس ليرنينج باكو جرتا مركز تاع waxbarashadii badarsiisa waxbarashada markasta qayb ka noqonaysa inaad waxbarashada ku korodho khibradda ku korodho mindsetka ku korodho waxyaalaha isleeyo laga faa'iidaa marka wax ka mid tahay kaamirada ugu badan waxay tahay connecting with people inaad dadku xirantid caalamka si fiican ugu xidhid inaad dad badan mataqana opportunities ay heshido fursado ganacsi xataa sameyn kartid oo media iyo meel kala duwan aad furan kartid waxa kamid ah
mataqaanaa wax la dhaho creative expression inaa waxa aqoonta aa u leedahay inaad soo bandhigi karto ama sawir ha noqoto ama muuqaal ha noqoto marka awoodaadii baa dunida tusaysa saasaa dad kugu soo xirmayaan marka maadaama bulsho duwan ay wax kugu kala xirantahay waa awoodaada iyo aqoontaada iyo kartidaada marka waxay noqonaysaa inaad sii wadid oo self moral ah heshid oo aad shaqadii kusii dhex jirtid runtii sawir qaadistu caalamka wax weyn bay ka tahay oo wax la dhaho markii la qeexayo photography marka la qeexo arts iyo science labadaba isugu jirtaa oo marka caalamka door weyn bay ka leedahay waxaa arkaysa oday weyn oo reerkiisa wixiisa education qaadanayo muuqaalo kuu soo duubayo daroonta maanta si loo tijaabiyo waxa laga yaabaa halkaa in la dhaho wareedhe warada iska sii weynaata mustaqbal badan ma siilaya ma ka baxda marka heerkii la rabay qofku waxa moodaya intii dhalinyarada yahay yes ha intuu dhalinyarada yahay inuu qofkii ku sii dhex jiro waxa laga yaabaa inaan arko mid walba sii socdo inuu sii macsanaayo diyaar marka waa soo wareejinaya adaa mahadsan tahay